dhinaca xun haddii laga istaaga xitaa ciidankaas waa ciidankiinnii waa wiilashiinnii waa ciidan soomaaliyeed inuu idiin adeegaa loo keenay talada lagu keenna waxbaan ku lahaa wax adinka wax dhibaalkiinnaana kama shaqayn karaba oo haddaan anigu inta u taga yidhaahdo kaalaya xaafadda degan barakiciya laaya ama maiga yeelayaan sow ciidan qaran oo akhlaaq leh oo la tababaray oo wax garanayo wadaniyad la soo maa sow ciidan la xukumo talis la maa dadka in kala weysiga siyaasadeed inuu samaysta raba ee u maraya meelaha dadku ka nugul yahay ha ka daayaan reer beledweyne ama reer hiiraan intaasaan rabaa inuu caddeeyo qolada saaxiibadeeya ee hadda baagamuudada ah ee maalinlaweed hadashay wax weynoo wax dhibaala ma leh waayo mar kasta oo isbeddel siyaasadeed yimaado ama xaaladdu soo gaadho qaaba qowsayna ay soo gaarto dirbiyo isku qaadqaad waa jiri jiray weligeed wax weynoo dhiba ma laakiin waxa wax lala yaabaa oo wax laga naxa ah waxa wax lala yaaba ah oo wax laga naxa ah nimankii la rabay dalka inay maamulaan ee isaga tiifka ahaa ee ra'iisul wasaarihii u horreeyey inuu golihii wasiirada u fariisiyo ciidan waajibaad qaran meel u aaday hala soo celiyo haddaan dhinac kasta ka istaagnay arrintaas meel waa saari weyne ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka soo jeedaa gobolkan aan dariska nahay ama statekan aan dariska nahay ee galmudug ayuu ka soo jeedaa meeqa jeera waa xodogaal baad ka tihiine ayaa ciidan la geeyey oo diyaarad lagu geeyey sidan oo kale isagoo hadlayo xukuumad fadhiisanay maad aragteen yaa laba shay dadka reer hiiraanow maanta dekanadiinnu meesha jirtaan idiin sheegaya reer hiiraanow reer beledweynow dekanadiinnu maanta meeshay jirtaan idiin sheegaya laba shay hadday dhacdo electionku soomaaliya ku heshiisay doorashada soomaaliya ku heshiisay ee laba deegaan doorasho la yidhi hadday beledweyne ka wareegto qof kale oo aadamiya oo dekanadaa gasha ma jirto waxaa galay ninka prime ministerka dalka ka ah sababtu tahay asagaa yidhi ninkii soomaaliya dooratay ii wareeji doorashada iyo amniga doorashadaba igu wareeji intaa waad ogtihiin ila tag haddii fiir golo ay ka qaldanto hal bointa hadday ka qaldanto dekanadiinu meelay saaran tahay rooble ninka la yidhaahdo ee prime ministerka ah ayaa arrintaasi arrin ugu bareero waay waxaa mushkilad ah oo in aad looga fakero u baahan haddaad madax tahay باورka loogama adeegsado looma isticmaalo dadkaad madaxda u tahay qodobka labaad adinkoo saas u hareeraysan oo al-shabaab idinku hareeraysan tahay oo halkaa ka aan qaadi karin ninka dhahayaha laga soo celiyo ciidanka war gurceel maxaa ka dhacay ma al-shabaabaa joogay soo waxaad ogeed kama dhicin weli asoo ka hadlaya arkay oo dhahay ciidankaana soo celiyo asagoo golof wasiire fariisanaya arkay inta maxaa ka soo uray adeer mayse waxaan u qaadanaynaa isriixriixii soomaaliya ka jiri jiray ninka qalbigiisa inuu iska goyn prime ministerka weli inuu xasuusan yahay war soomaaliya waxaa waa hilmaantay soomaaliya waxaa waa hilmaantay laakiin asagu weli inuusan hilmaamin oo ay qalbigiisa ku jirto oo hadduu si kale hadday wax ugu noqon weyday oo si dadban ayaa noo muuqata
adeer maahe ka daa aan ku leenahay maahe ka daa war waxaad ciidamadu joogaan koonfur galbeed oo waxay joogaan Jubbaland oo waxay joogaan Galmudug oo waxay joohar bay joogaan oo state ka mid ah waliba iyagoo dabaabaad u tii joogaan kuwani wacadaha waa infantry dabaabaad iyagoo wata ayay joogaan wax dhibaato miyaa ka jira way golo wasiir loogu fariisanaya adeer waxay Soomaali ku yeedo tama qabato